محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقت عقابان قف ولي بمجلس أي مصب كيس أيام كسلامي تمانتين وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب رمتيات كان تو سؤال دونا ما دام اللي جو حل عفرة ووقته ودعيه شركة أي كتشجع بلوين تهويه ورمتيات شروينا أي كخيب جلان قضياش لقنك حبنا كتير سن ميدو مرشحين تا اللي بانا كتير سن لبعض أقل برلمانك اللي بانا كتير سن برلماننا دقل ملوك يهير شبيلة أغني هنو هوان يدلني يرو كسو جيدا داش هويه أيها لوجا هالله حالة دكتة جندلك يحل عن كل كوركا شروينو وحوس كراعي قد بدأ صاصع كو إن الشرع دورتها هاي مدكرر سجى حلوانا كتير سنقولها شعب برلمانك مدحلات كيسو دمادي يجو كرديين مدحويني هراء مدحلات كيسو دمادي يادونا اسكو كرديين مدة بس صناعة سيدا زراد شروينه وما أقون سنة محمد عبد الله فرماجو مدحوين الصوماليين لابو إن سكتك دقة لوجا لابتو قان كمدكرر سجى شرع دردا شروينه هنا وحقوقات كينا يا إنه ودك كستو لجوهر استاجو مدكرر سجى سيقوسان ومال مري صدق إما بعد ذلك يكون جرتو قبل شذا دور شيء شيء لجويه هاي تاسو صدق وجويه هي شيء كتطبيق طبعا في سبتمبر حنقول باقينا إن سكتك دقة اسكوجي مادان مدحها دور القبلات يدا يسامي إذا كلا السياسات ذلك يضو عن الله يرمن مدحوينه هراء ما داب أو عديستي إن أوسن ربين دورشو تابدر كيدنا ودور بدي مدكرر شرع الدراء أفر شروينه وحكديك يا عواقب حمادة كدلتا مدكرين شرع الدراء وحونا عدينا يا إن مسؤولية أي قاضيان مدحوينه مدحليت كيسو دماضي يقدون كقولها شعب شن وحان مركله ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaar ah loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu howlan fulinta ajandaha muddo kordhinta lix shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo shirweynuhu wuxuu cadaynayaa inaysan shacabka Soomaaliyeed ku metelin go'aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si degdeg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas'uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu todobo shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aqalka sare ee baarlamaanka federaal midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ah ee dalkeena ka hana qaadaysa sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddaxileedkiisu dhammaaday kaasoo ku howlan hurinto fidno iyo abaabul colaadeed sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada meelna uga soo wada jeestaan difaaca iyo siyaasadeedka soo jireenka ah ee xukunka sida nabad ah la isku wareejinayo 4 sanaba mar taasoo u dhaxaad u ah dhismaha nabadda iyo dawlad dhiska dimuqraadiga ee dalka ka hana qaad toban shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantahay